السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الدعوة ديال سود وهذا مركل إيه ولكن هذا كرامة ألكم وحنا نقول هيا مقال عجيبة بل سيدنا المقال كقد بن وحنا نقول عصرنا مركل وهري هديت هيا دين صوب وقتفضل سبسكرايب تنقول شرف سلام كان الريح قبل الكعس أدي هورين ولا شوكتي ما حد نوصل أنت هاي أدي أضبط ما صنت هاي مقال كان قد وريه كسوجن مجال هرجيسة إسلام كان كتر تلفزيون كوريال أي سيدا أتكسو أركتني عوانك كلمة عجيبك وحوصوت البضي وريه markaasi ilaahay ka gaarsiiyo fariin waliba si toos ah marka muuqaalka kor dhici maayo waan wada daawanaynaa kadibna waan soo noqonaynaa waxaan doonaynaa oo aan raadinaynaa wariyaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala warogeyn kara wariyaal warkoodu samada teegi karayo wariyihii weynaa ee maxamed cismaan mire sayid assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh fariintan waxaan toos ugu soo dirayaa guud ahaan warbaahinta Soomaalida iyo dadka kale ee daawadayaasha waxba waxaan doonaynaa oo aan raadinaynaa wariyaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala warogeyn kara wariyaal warkoodu samada teegi karayo markaan sidaa idin leeyahay wariyaashaasi maaha sida aniga oo kale oo iyo wariyaasha kale ee bulshada warka gaarsiiya waxaan doonaynaa wariye warkiisu samada gaari karayo wariyahaasna maaha mid xirfad wariyanimo bartay ee dadka aan u jeednaa waa dad erga ah oo erga nooga noqda ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo warka aan doonayno samada geeya dadkaas oo kuwa awliyada ah ee dadkiisa ku dhex jira ilaahay kamida oo ay kamid yihiin kuwa muxsiniinta kuwa xaaladu haysteen ee la dulmay iyo dadka kale faraha badan ee diintu ay noo sheegtay iyo xaaladahaba walaalayaal waxaan doonayaa inaan idinku wargeliyo wariyihii weynaa ee maxamed cismaan mire sayid in 7 casho ka hor xanuun ku soo booday xanuunkaas oo aanan u arkayn mid dabiici ah dadka u dhuun daloola xanuunkan iminka ku yimi xanuunkaasi waxaan la xidhiidhinaynaa inuu yahay xanuun ilaahay subxaanahu wa ta'ala u keenay kuna imtixaanayo wayna dhici kartaa in uu yahay xanuun ah kii dunida ka kaxaynayay balse waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa ilaahay inaanu taa ka dhigin waxaan rajaynaynaa in ilaahay xanuunka ka kiciyo hadda magaalada Addis Ababa ayaanu la carnay hospital ayuu yaalaa wuxuu ku jiraa ICU-ga waxay dhaqaatiirtu noo sheegeen xaalku inuu aad iyo aad u culus yahay balse ilaahay waxba kuma cusla oo ilaahay wax kasta waa u fudud yihiin waxaan marti maanta idinka nahay inaad sayid duco ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ugu geysaan oo nooga ergeysaan intiina wanaagsan iyo intiina ilaahay ducada ka aqbalayo iyo qof kasta oo muslina oo aan doonayno inuu isku dayo inuu ilaahay nooga ergeeyo oo warka nooga gaarsiiyo oo nooga baryo isaga awood leh dhakhtar awood ma leh inuu sayid caafimaadkiisa u soo celiyo oo caafimaadku marka hore ugu deeqay mar labaad uu ugu deeqay ilaahay subxaanahu wa ta'ala taas ayaan walaalayaal aan idin ka codsanaynaa oo aanu idin leenahay fadlan waa tahay daawadayaal sidaad u wada jeedeen ninkaas wariyaha ah ee reer Hargeysa ayaa xanuunsan isla markaana dhakhtar loola cararay ilaahay caafiyo caafimaad degdeg ah siiyo cid lagu jiro ma ogin ummadda Soomaaliyeedna waxa ku jira boqolaal iyo kumanaan markaasi ducadooda la aqbalo oo maxaan ku sheegay dad muxsiniin oo wanaagsan oo mu'miniina fadlan ninkaasi faataxda u soo mara soo duceeya commentiga ugu soo duceeya sidoo kale barnaamijka leegsi saara si Soomaali badan u gaaro markaasna ay dad fara badan ugu soo duceeyaan ninka wariyaha xanuunsanaya oo walaalkiina aadan kara ama hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato fadlan subscribe inoo saar riix kambalaalka casisna markaana rukumo channelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada kala duwan ee xiisaha leh inaan ku soo gudbino hadda hore inoo joogtana aad baad u mahadsan tahay tan iyo muuqaalka mid lamid intaan ku kulmayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi وبركاته.